السلام عليكم. إيه ورما؟ أيه. سكول كان دقيقتين. أيه معبرتان. وحبرتان قف شيء كرم كجرا. يا محبرتان. كرو هلا محبرتان. أيه محاكلة. محاكلة. أيه. محاكلة. أيه. أيه. ما يقام الدواء ما يقام الدواء. سديد ما الدواء. أيه. سديد ما هل مال ما وضع قادتان مثل مالون البقية قادتان. مالنتي ما يقام الدواء قادتان. قيبنا الشني قادتان قيبنا اللح. أيه. إذا كم فسركتين. سدحات. إذا كنا. يا سديدات إيه. وما سنتين wax wanaagsanaa wadaan haddii idinkii tuuladiini oo joogan lii keenay waxbarashadii waxaa la rabaa inaad ka faa'iidaysataan dadaa xataa haysanin magacooda sida loo qoro aqoonin sida wax loo aqriyo aqoonin oo haddii ay weynaadaan waa aragteen lambarkan iyo fiiri iyo EVC-gan iyo fiiri ama iyo tuur ama lambarka magac igu qoro leeyihiin waxaa la rabaa inta ay yartihiin inaad ka faa'iidaysataan waxbarashadani lii keenay inaad caajistaan maaha beriyaad wax ku baran doontaan idinka hadda casri cusub aad taagantihiin waana lii keenay waxbarashadii waxaa la rabaa waxbarashadiina lii keenay in aad ka faa'iidaysataan si hadhow mustaqbalka dambe dadka aad la tartamaysaan ama asaagiina aad ula tartantaan caruurtiina aad wax u bartaan hadda waxaa laga yaabaa intiinaan boqolkiiba 10 waalidiintiina in wax ay idin meerin karin haddii guriga aad tagtaan oo imtixaankooda idinku adkaado marka barwaaqaad ku jirtaan ilaaha maad iskale ka faa'iideysta barwaaqada aad ku jirtaan haddaycina waqtigiina waqti aad u qurux badan aad haysataan waxaa laga yaabaa tuulooyinka kale hadda oo xaggan iga jiro in ay waxbarasho haysanin ma jiraan hadda tuulooyin kale dad ka yimaado oo iskuulkan waxbarasho u yimaado meeqa qofood fartaa taagto ay qofkii waxbarashada tuulo kale u yimaado inta yimaado wiilkaasi gabadhaasi iyo dadka kale oo ka yimaado tuulooyinka kale waxaan ku dhiirigelinayaa inaadan caajisin haddii aad caajisto haddii maanta maskaxda aad ka dhidin hadhow madax ka dhididaysaa ama xamaaliya noqonaysaa haddaad wiil tahay xamaaliya noqonaysaa ama beerfalow u jeesanaysaa in qof faca aad u xamaasho ama beerfalow aad ku noqoto oo waalidkaaga hadda ay falayaan oo aad soo aragtay waxaa ka fiican maanta aad maskaxda ka dhidido oo aad wax barato haddii gabar aad tahay waxaad noqonaysaa inaad cid kale u shaqayso ama beeri aad ku noqoto waxaa fiican inta aad beer ku noqon lahayd ama cid kale aad u shaqayn lahayd waxaa wanaagsan maanta inaad maskaxda ka dhidido si hadhow gacanta aad uga shaqayso oo caruurtaada wax aad u barto waalidiintaada wax aad u tarto waa mahadsantihiin waxaan mar walba idinkula dardaarmayaa waxay tahay in waxbarashada aad ku dadaashaan ardaydan quruxda badan ama macallimiintan quruxda badan ayaa idin hortaagan oo juhdi idinku bixiso 24 saac u taagan inaad wax barataan iskuulka dad badan ay ka qalin jibiyeen sideedaadka ay hadda aadeen magaalada formo ay fariisanayaan nin walba ku xisaabtamo ninkii sanadkii hore la dhigin jiray oo qalin jibiyay oo magaalada aaday in aad idinkana sidaas oo kale aad ku fikirtaan oo aad istiraahdaan waa qalin jibinaysaan insha Allah haddii aad dadaashaan haddii rabbi raali ka noqdo waxaan xasuustaa sanadkii markuu ahaa 2014 mar aan geedo barkaan imaaday macallimiinta intay ka luga jireen idinka hadda inta ka soo bixaysiin iskoolkana imaanaysiin ayaga inta inay ka lugeeyaan ee Sheekh Xuseen Cabdal ku tagi jireen ee soo noqon jireen dadaad hadda ogtihiin oo form 1 ama form 2 fadhiyo oo waxa jira subaxdii inta lugeeyo galabtiina soo lugeeyo dan gooniya danta ay leeyihiin waxay tahay waa in jahadliga ay ka baxaan waxa ay u lugeynayaan dhididkaas ay u socdaan haddoo roob doo iyo haddoosan roob intaba ay u lugeynayaan waxay tahay in aqoontooda ay sii kordhiyaan maanta wax way qori karaan wayna akhrin karaan balse waxay u socdaan nolosha heer sare inay ka gaaraan idinkana waxaan la rabaa sidaas oo kale inaad noqotaan ma la rabo in geedaha hoostooda aad fariisataan qof oo sheedaan duufsaday waa jira oo geedaha hoostooda fadhiyo oo waxbarasho waa ka weynaado yiraahdo waxbarasho lagama weynaado cilmi walbo aad leedahay ama aqoon walba aad leedahay cilmi baa ka maqan ama aqoon baa ka maqan
mar walba waa la raadsadaa inaad isyastaanna waa laga fiican yahay qofka walaalka oo ama kaa yar ama kaa weyn hadduu wax kuu sheego ama fasalka kaa hooseeya ha ahaado ama fasalka kaa sareeya ha ahaado inaadan dhihin ninkaas oo fasalka iga hooseeya ama iga yar ma wax ii sheegayo inaad qaadato cilmiga walaalka uu kuu sheegayo waayo aqliga adiga kaa maqan walaalka uu ku jiraa waxaan iskula dardaarmaynaa oo ballanteena oo ay tahay in aan ka faa'iidaysano jaaniska maanta aan haysano aan ka wada faa'iidaysano jaaniska maalin aan maanta ahayn ninkii maanta musuq maasuq iyo sameeyo iskoolka aad markii la yiraahdo xamiiraha galo maalin aan maanta ahayn ka shalayna markii uu arko ninkii ay isku fasalka ahaayeen ninkii ay isku cashirka ahaayeen ninkii ay wax isla baran jireen oo dharkiisa u cad asagana yaanba garabka u saaran tahay ama xamaali suuq oo ka yahay markaasoo shalayna inta aad shalay lahaydeen maanta wax barta inaad maanta wax barataan oo aad maskaxda shiishaan oo aqliga aad kala goosataan oo dadka ilmaha kale aad nin walba ninka kale saaxiibkiisa haddii waxbarashada uu diidayo inaad kula dardaarantaan oo aad tiraahdaan waxaan rabnaa inaan wax baranno inaan dalkeena wax u qabanno inaad tiraahdaan soo ma jirto qof dalkan hadda mustaqbalka leh waxaa idinku dhex jiro qof mustaqbalka dhow haddii rabbi raali ka noqdo oo ilaahay qadaro oo qofka ilaahay u qadaro oo madaxweyne ka noqon karo degmadan gudoomiye gobol ka noqon karo gudoomiye degmo ka noqon karo wasiir noqon karo waa goorma waa markii idinka aad dadaashaan oo dadka aad ka soo dhaxbaxdaan oo aad muujisaan oo wax aad barataan oo dadka asaagiina aad la mid noqotaan laakiin haddii aad tiraahdo sideedaada ka baxay tuuladeedan jooga waxaa laga yaabaa cilmiga aad baratay xataa inuu kaasii tirtirmo aakhiran waxaa u laabanaysaa yaambadaadii iyo xamaaliyaa u laabanaysaa iyo inaa ugu dambeyn shaqada ugu fiican ahaynaysa waxay tahay inaad doon wado marka waxaan idinkula dardaarmayaa in aad cilmiga kordhisaan oo aad nin walba sharaftiisa u ilaalsado cilmiga maadiga keliya kuma koobno diinaa ku jirto qof walba haddii diinta aad xifdisan tahay oo aad taqaano oo 24 saac diinta aad baranayso cilmiga kalena ilaahay wuu kuu fududeynaa laakiin diinta meel iska dhigaa lugtaan ku riixaa cilmiga maadiga keliya qaadana haddaad tiraahdo oo kugu adkaanaa damiinka iskoolka ugu xunaa noqonaya weli marka dardaarankeena waa noo dhan yahay insha allah walaalo muslimiinoo waxaa jiri doona wajiyaashiina quruxda badan hadday fiirsadaan insha allah sanadka dambo idinka farxin doono haddii rabbi raali ka noqdo muuqaalkan la duubayo waxaa loo duubayaa dad walaalaa inay ku qancaan si dharka iskuulka aad ku dhigan lahaydeen si ay idinku iibiyaan insha allah wejiga ka dambeeyo aan idiin soo laaban doono haddii rabbi raali ka noqdo idinkoo faraxsan annagoo faraxsan aan isku soo laaban doonaa insha allah waana mahadsantihiin waxbarashadana ha lagu dadaalo